waan daawadayaal ku soo dhawaada warka BOS Somali TV qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah wajiga koowaad ee shirkii u dhaxeeyay golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo dhamaaday doon xoolo ka qaaday Soomaaliya oo ku gubatay biyaha u dhaxeeya dalalka Cumaan iyo Imaaraadka Carabta xildhibaan Saadiq John oo gaaray magaalada Dhuusabareeb xilli uu sii xoogaysay khilaafka u dhaxeeya Qoorqoor iyo Xasan Sheekh kulan looga hadlayay sugidda amniga iyo doorashooyinka galmudug oo ka dhacay magaalada Dhuusabareeb taliyaha ciidanka xoogga dalka oo safar shaqo ku gaaray magaalada Baydhabo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo wafdi la socday oo booqday masjidka ugu weyn dalka Algeria wararka dibadda aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Trump oo Shiinaha u tagay qodobo ka mid ah Iran iyo ganacsiga qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhaya daawan doontaan haddii aad guud وأربعة تاريخنا يكون بيجان تهاي سدح يتبقى كابيش عشان عده مي سنة كلا بكون يلحي لبعتن بسول والدا وديال قضب بدي أخبر دعوتين وأنت أذكر بيسرا وجهك هو بعد شركة ولحية قلها مستقبل كصوماليا مدحوين حسن شيخ محمود ده أي صوت اللادي سدوا كان كوفا ظاهرنا يوري إن محمد علي سياد shirka u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha mustaqbalka ayaa soo dhamaaday iyadoo wali si rasmi ah loo shaacin wax natiijo ah oo ka soo baxay wadahadalka wararka la helay ayaa sheegaya in warbaahinta aan loo ogolayn inay goobjoog ka noqdaan kulanka halka dhinacyadii shirka yeeshana ay dib ugu laabteen goobihii ay ka yimaadeen waxaa la filayaa in saacadaha soo socda la helo xog dheeraad ah oo ku saabsan qodobadii laga wada hadlay iyo in mar kale dib la isugu soo laabanayo maadaama aan wali wax heshiis ama war rasmi ah aan laga soo saarin wadahadallada labada dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka isagoo yiri shirka madaxda dalka iyo kooxda mucaaradka xafiis dawladda leedahay ayuu ka dhacayaa iyo dhul dawladda ay ka taliso kuwaan isku kalsooneen ee dhibcaha ka raadinaya wax kasta waxaan u cadaynaynaa in madaxda dalka wadahadalkoodu uu yahay mabda laakiin kooxda calaacalku waxa qiimo ah uusan ugu fadhin waayo wax ajenda ah ma wataan aan ahayn in wadahadal kasta ay fashiliyaan waxay diideen gogashii madaxweynaha uu fidiyay tabartooda ay soo tijaabiyeen 10kii bisha waxayna ku soo laabteen isla gogashii ay diideen sidaas waxa yiri wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo weerar toos ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka doon xoolo ka qaaday Soomaaliya ayaa ku gubatay biyaha u dhaxeeya dalalka Istaga Imaaraadka Carabta iyo Cumaan wararka laga helayo maranbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz ayaa sheegaya in dooni xoolo siday laguna magacaabo Xaaji Cali kana baxday dekedda magaalada Berbera kuna sii jeeday dalalka Khaliijka ay ku gubatay biyaha u dhaxeeya dalalka Cumaan iyo Istaga Imaaraadka Carabta doonidan oo waday xoolo fara badan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay ku wajahnayd suuqyada Carbeed xilli si weyn loo dhoofinayo xoolaha Soomaaliya ila xog ogaal ah ayaa tilmaamaya in dab xoogan uu qabsaday doonida xilli ay mareysay afaafka hore ee maranbiyoodka Hormuz oo ka mid ah marina biyoodka ugu mashquulka badan caalamka ilaa iyo hadda lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabkaasi waxaana sidoo kale aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee keenay gubashada doonidan warar hordhac ah ayaa sheegaya in xaalad amni ee gobolka ay saameyn ku yeelanayso isku socodka maraakiibta iyo doomaha ganacsi dhacdadan ayaa ku soo aadaysa toddobaadyo kadib markii dooni kale oo ka baxday dalka Cumaan kuna sii jeeday dalka Yemen taasi oo waday agab ganacsi iyo bagaash lagu soo waramay in lagu weeraray doon taasi oo aan wali la shaacin cidda ka dambeysay weerarkaasi xaaladahan isu soo taraya ayaa walaac ku abuuray ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha maraakiibta iyadoo la sheegayo in qaar ka mid ah doomihii ka bixi lahaa Istaga Imaaraadka Carabta ay hakad galeen sabab la xiriira cabsi laga qabo amniga biyaha gobolka xildhibaan Saadiq John ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusabareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug xilli uu sii xoogaysay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug Qoorqoor iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cali Siyaad ayaa mar kale warkan faahfaahinaya
magaalada dhuusamareeb caasimadda maamulka ee galmudug maanta waxaa gaaray xildhibaan saadiq joon iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyey gudaha magaalada soo dhoweynta xildhibaankana waxaa ka qayb ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada jabuuti ee ka howlgala deegaanada galmudug waxaana safarkiisa ku weheliyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan yaasiin faray iyo mas-uuliyiin kale safarka saadiq joon ee galmudug ayaa imaanaya xilli si weyn loo hadalhayo inuu xumaado xiriirkii u dhexeeya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuwaas oo muddo dheer ahaa siyaasiyiin si dhow isku taageersan sidoo kale xildhibaan saadiq joon ayaa dhowaan bartiisa facebook ku qoray fariin si weyn loo hadalhayo uu u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taa oo ahayd duqxasanow tala adduun taada uun maahan hadalkaa oo dad badan ay u fasirteen inuu si dadban uga soo horjeedo faragelinta siyaasadeed ee dowladda federaalka ay ku samaysay galmudug in saadiq joon uu ka dego galmudug ciidamada jabuutina ay qayb ka noqdaan soo dhoweyntiisa islamarkaana uu salaan ka qaato ciidamadaasi ayaa abuurtay hadalhayn xooggan iyo shaki siyaasadeed oo si weyn loogu falanqaynayo baraha bulshada dad badan ayaa arrintaa u arkaa fariin siyaasadeed oo muujin karta isbeddel dhanka isbahaysiga ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo xildhibaan saadiq joon ayaa lagu tilmaamaa saaxiibo si aada isugu dhow kuwaasoo la sheegay inay isku garab istaagi karaan haddii xaalad siyaasadeed ay soo wajahdo mid iyaga ka mid ah kulan looga hadlayay sugidda amniga iyo doorashooyinka maamulka galmudug ayaa ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dhex maray laamaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasi oo diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha ammaanka kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan la filayo in deegaanada maamulka galmudug ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah iyadoo saraakiisha ammaanka ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhow ee dhex marta shacabka iyo ciidamada si loo xaqiijiyo ammaanka guud kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Cismaan Cabdullaahi Kaniif iyo taliyaha cusub ee booliska Galmudug kuwaasi oo bulshada ugu jawaabayay su'aalo la xiriira amniga doorashooyinka iyo doorka shacabka ee sugidda nabadda taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Cismaan Cabdullaahi Kaniif ayaa bulshada reer Galmudug ugu baaqay in ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ay la wadaagaan xogaha muhiimka ah ee gacan ka geysan kara sugidda ammaanka iyo ka hortagga falalka amni darro amniga in la ilaaliyo saacadan wax la abaabulo iyo amni darro inaysan anfacayn deegaankan amni darro ma xilligan deegaankan anfacahay quruxda maanta ka muuqata caasimadda iyo mashruucyada ka socda iyo guryaha qurxoon iyo qof walba inuu ganacsigiisa si xor ugu ganacsanayo maqashqashaad bay u baahan yihiin ma ciidan la aruuriyo xilliga waxay u baahan yihiin iyo maleesiyada waxaas inay ka shaqeeyaan uma baahna si wada jira baa la rabaa arrintaas maaragtay in looga hortago haddii ay jirto dad ku howlanna waxaan leenahay iska daaya nabadda deeqda ciidan dadkan suga amnigooda waa haystaan ciidanka qaranka ku filan kuma filna ciidan kaleeto wax kaleeto la abaabulo kuma filna hadday ku filnaan lahaayeen lama sameeyeen ciidanka qaranka lama sameeyeen marka biliisku waa in garab taagan yahay waa adeegaha nafta iyo maalka oo badbaadiyaha qofka bani'aadanka naftiisa iyo maalkiisa marka annaga marnaba lagama yaabo inaan dhinac leexsan aan u shaqayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaas bay noo ahanaysaa isgarab istaag haddii ilaahay amniga nala kala shaqeeyo baan inka dalbanaynaa runtii dhammaan bulshada caasimadda iyo ururada siyaasadda iyo annagoo isku duuban waxaan rabnaa wacyigelintaas iyo ololahaas si fiican oo mug leh inaan ugu diyaargarowno uga qayb qaadanno waa xaq dastuuri ah oo qofka muwaadinka ahu uu leeyahay inuu isdiiwaan geliyo kaarka codbixinta uu qaato si uu codkiisa u dhiibto codkiisuna wuxuu go'aamiyaa mustaqbalkiisa doorashadan aan hadda u diyaargaroobayno ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo soohodimuhu ay qabanayaan in inta fariimo kale la soo diro oo la yidhaha waa la diiday ma rabno in bulshada la marin habaabiyo ma rabno doorashadaas waa la aqbalay caasimadda maamulka caasimadduna wuu oggolaaday annaga sideeda siyaasiyaal ma nihin nabadgelyadaana deeqda
ayadaan rabnaa inaan wax ka soo dhoweyno caawa oo guddigii doorashada qayba ka joogaan annaguna aan halkaan fadhinno doorashadii iyo waqtigeediina lagu jiro waan soo dhoweynaynaa. waxaan soo dhoweynaynaa doorashada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaa weeye waa farax aad baan ugu faraxsannahay. ma ogolin mana ogolaan doono mana jecelin. waddankan burbur badan buu soo maray, dhibaato badan buu soo maray. hal qofa shakhsiya wax uu wato in dhibaato ay u keenaan ma ogolin mana jeclaan doono. waxba meelaha laga sheegahayaa waxaan leenahay dadkaas xoogaa doorashada diidan iimaanka allaha gelshaan leenahay. annagu waxaan la shaqayn doonaa maamulka dowladda federaalka. waxaa weeye waa soo dhaweynaa, waa jecelnahay, waa ku faraxsannahay, teena waa ku soo moodnay, midaana inaan ku moodnaa rabnaa haddii alla idmo. dadku marka waa albaablayda oodley. hadda dadku wixii albaablaydu ay xukunto oodlaydu badanaaba qaadataa. hadda dadka miyiga jooga howlahan kama warqabaan, annagaa marka u qaadiyo oo inagu qaadan doonaa haddii alla idmo. diyaarna waxaa u nahay galmudug inay la shaqayso madaxweynaha federaalka Soomaaliya. sidaasaan heshiis ku nahay insha Allah. dadkeena waxaan u jecelnahay oo rabnaa inaan ka helno qof iyo cod iyo ciday raba soo saarta, ciday rabaan iska nacaan. intaasaan diyaar u nahay insha Allah billahi kariim. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa safar shaqo waxa uu ku gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. markale Maxamed Cali Siyaad ayaa warkan dhamaystiraya. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sarreeya Guute Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halka uu si weyn loogu soo dhaweeyay. ujeedka safarka taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa ah dardargelinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo xoojinta amniga guud ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. taliyaha ayaa magaalada Baydhabo wuxuu kulamo kula yeeshay saraakiisha ciidamada maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo diiradda lagu saaray adkeynta amniga iyo dardargelinta howlgallada socda iyo qorshaha lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab. sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sarreeya Guute Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa kulan gaar ah oo ku saabsan amniga magaalada Baydhabo la qaatay hogaamiyaha ku-meelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji iyaguna ka wada hadlay xaaladda amni ee guud, iskaashiga ciidanka iyo maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa howlgallada lagu sugayo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada Koonfur Galbeed. taliyaha ayaa sidoo kale la filayaa inuu kormeer ku tago furmaha hore ee dagaalka isagoona ciidamada kula dardaarmi doono inay sii laba jibaaraan dadaalada ay ugu jiraan difaaca dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab. booqashadan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sii xoojinayso howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo wafdi la socday ayaa booqasho ku tagay masjidka ugu weyn ee dalka Algeria. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Algeria ayaa maanta booqday masjidka weyn ee caanka ah ee Masjid Jaamaca Algeria kaasi oo ka mid ah masaajidda ugu waaweyn uguna casrisan qaaradda Afrika. wasiirka wafdigiisa ayaa halkaasi kusoo indheeyay bilicda quruxda badan ee masjidka, qaabka casriga ah ee loo dhisay, taariikhdiisa iyo kaalinta muhiimka ah oo uu kaga jiro horumarinta diinta Islaamka, dhaqanka iyo isku xirka bulshada muslimiinta ah. mas-uuliyiinta masjidka ayaa wafdiga Soomaaliya siiyay warbixin ku saabsan marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha Masjid Jaamaca Algeria, adeegyada uu bulshada u qabto iyo sida uu kaalinta wanaagsan uga qaato fidinta cilmiga diinta iyo kor u qaadida wacyiga bulshada. wasiir Xoosh ayaa dhankiisa bogaadiyay horumarka iyo dadaalada dowladda Algeria ay ku bixisay dhismaha iyo ilaalinta goobaha diimeed ee muhiimka ah isaga oo xusay in masaajiddu ay door weyn ka ciyaaraan mideynta bulshada, nabadda iyo kobcinta qiyamka Islaamka. booqashadan ayaa qayb ka ah xiriirka iskaashi iyo midka diblomaasiyadeed ee sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Algeria. hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka VOS Somali TV markana wararka dibadda.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Shiinaha u tagay qodobo ay ka mid yihiin arrinta Iran iyo sidoo kale ganacsiga. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray magaalada Beijing halkaasi oo uu kulamo kula yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Shiinaha, iyadoo wada hadallada labada hogaamiye diiradda lagu saarayo arrimaha ganacsiga iyo xiisadda ka taagan Iran. Trump ayaa sheegay in wada hadallo dheer uu la yeelan doono dhigiisa madaxweynaha Shiinaha uuna kala hadli doono xaaladda Iran, balse wuxuu carabka ku adkeeyay in ganacsigu uu yahay qodobka ugu weyn ee safarkiisa. Kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Israel oo isku dhinac ah iyo Iran uu sare u qaaday qiimaha shidaalka isla markaana saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. Dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Israel in ay ka been abuureen sababihii lagu fuliyay xasuuqyadii ka dhacay Iran, isagoo sheegay in dagaalka lagu hayo Iran uu yahay mid ka dhan ah sharafta shacabka Iran. Tehran ayaa sidoo kale ku adkeysanaysa in cunaqabataynta laga qaado Iran si loo gaaro xal siyaasadeed. Gudaha daawadayaal warkii aad ka daawanayseen VOS Somali TV waa naga intaa kulanti dambe nabadgelyo.